aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina kulankan maanta aan ugu wada hadlayno tubta geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya ka soo qaybgalkiinu wuxuu tusaale u yahay sida ay kaga go'an tahay taageerada horumarka geedi socodka dowladnimada Soomaaliya annagoo maanta u fadhina tiirkan inclusive politics ama siyaasadda loo dhan yahay waxaan aad idinkaga mahadcelinaynaa taageerada hagar la'aanta shaqadan ay dalka Soomaaliya intii ka socotay la garab taagnaydeen muddadii fogeyd iyo dadaaladii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya uu soo maray ujeedada kulankeena maanta kuma koobna kaliya siyaasadda loo dhan yahay balse waxa uu daaran yahay dadaalada wadajirka ah ee lagu horumarinayo dowladnimada Soomaaliya isla markaana leh adkaysi horumar iyo dowladnimo waarta Soomaaliya siyaasad qaldantay ayay la burburtay haddii aan siyaasadana la toosinna waxaa dhici karta khatar mar walbaba imaan karta siyaas awgeed ayaan tiirka siyaasadda loo dhan yahay uu xoogga u saarayaa mawaadiicda ugu muhiimsan ee hadda ajendayaasha dalka yaalla markaan dib u eegno Soomaaliya waxay u soo dhabar adeegtay duruufihii iyo caqabadihii badnaa ee burburkii iyo colaadihii sokeeyay ee dhacay waddanka 1991 oo mar ay ku dhawaatay inay dib dambe dowladnimada Soomaaliya cagaheeda isku taagin laakiin bulshada Soomaaliyeed adkaysigeeda iyo dulqaadkeeda ayay dib loo yagleelay dowladnimo Soomaaliyeed oo hadda meesha aan joogno na soo gaarsiisay waxaad ogtihiin khatarta dowladnimadu mar walbaba dul saaran inay adag tahay waxaan xasuusanaa 2021-2022 markii muddo kororsiga xilligii doorashooyinka inta la gaaray dalka lagu dayay muddo kororsiga khatartii aan qarka u fuulnay laakiin alxamdulillah tallaabooyin siyaasadeed iyo bisayl dadka Soomaaliyeed ay gaareen ayaa looga badbaaday arrintaas waxaana dhacday ugu dambeyn sanadkii 2022 doorasho ku soo dhamaatay in si nabada xukunka lagu kala wareego annagoo ka faa'iideysanayna iskaashiga iyo wada shaqayntiina wanaagsan waxaan halkeedii ka sii wadnay mabaadi'da isbeddelka iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxaanu wadajirka iyo wada shaqayntiina ugu heelin karnaa Soomaaliya oo aan u horseedno hiigsiga fog oo ay leedahay ee ah dimuqraadiyad horumar xasilooni iyo nabad waarta haddaba hanaanka dowlad dhisidda ee aan hiigsanayno wuxuu noo sahlayaa inaan sare u qaadno awoodda dowladda si ay u gaarsiiso adeegyada asaasiga ah ee muwaadiniinta iyo in la abuuro jawi ku habboon in dadka Soomaaliyeed ay talada dowlad dhiska wax ku yeeshaan oo ay qayb ka noqdaan dhismaha qaran ku dhisan mabaadi'da cadaaladda dimuqraadiyadda sinaanta iyo wadajirka jirayaasha iyo martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin ayadoo lagu guda jiro howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay ka xoreyso khawaarijta shabaab ku dhawaad 800 kilomitir welina dagaalkaasi waa u socdaa deegaamadaas weyn ee baaxadda leh ujeedka laga lahaa kaliya ma ahayn in khawaarijta dadka laga dulqaado balse waxay sidoo kale mudnaanta la siinayay in dadka deegaanadaas oo muddo dheer ay ka xarimeen adeegyadii asaasiga ah in la gaarsiiyo adeegyada asaasiga iyo dowladnimada intaba sanadkii tagay 2023 mudnaanta dowladda ee deegaanada la xoreeyay waxay ahaayeen xasilinta iyo horumarinta dowladnimada heerka hoose degmo umuurahaasi waxay ahaayeen arrimaha mudnaanta leh ee qaranka iyadoo la xaqiijinayo in dadaalada xasilinta ee deegaanadaas la xoreeyay looga gudbayo horumar dhexdhexaad ah heshiisyadii taariikhiga ahaa ee golaha wadatashiga qaranka ee dalka lagu federaaleynayay ee shanta gaaraya qiyaastii dhammaantood waxay u adeegayeen
in awoodaha la dedejiyo la kala qaybiyo dalkana loo qaabeeyo nidaamka federaalka ay u qaatay heshiisyadaas kuwii ugu muhiimsanaa marka laga reebo kuwa cadaaladda iyo amniga waxa iyo federaaleynta fiscal federalismka waxa heshiisyada ugu muhiimsan ay ahaayeen astaynta awoodaha oo la kala qaybiyey dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose iyo awoodaha wadaagga oo 124 qiyaastii gaaray waxa sidoo kale muhiim ahaa oo markii u horeysay taariikhda ahayd 50 sano kadib in doorashada dalka la qaabeeyo oo heshiis la gaaro oo doorashooyin jadwalaysan waqtiyeysan la xadido waqtiyadoodii waxaana hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay gacanta ku haysaa shuruucdii kala duwaneed sidii loogu heshiiyey doorashooyinkaas waana ku mahadsan yihiin xafiisyada aan ka wada shaqeyno arrintaas IESG oo ka mid yahay iyo xafiisyo kaleba marka aan ka hadlayno horumarkeena dhow ee hababka dhismaha dowladnimada iyadoo diiradda lagu saarayo qaab dhismeedka federaalka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo bulsho iyo maamul wadaagga ee meelaha cusub ee dib loo xoreeyay saameynta wanaagsan ee bulshooyinka sida xarar dheere ayaa tusaale fiican iyo meelaha la mid ah ayaa loo soo qaadan karaa halkaas oo 20 sano kadib caruurtii waliba u badan gabdho ay u dareerayaan iskuulada fursadna u heleen inay iskuulada aadaan waxa tusaale baa u soo qaatay meelo badan oo la mid ah ayaa jirta marka aan ka hadlayno caqabadaha geedi socodka dib u dhiska Soomaaliya dib u heshiisiintu waxay wali tahay tiir dhexaad u ah horumar waara ee Soomaaliya geedi socodka dib u heshiisiin dib u eegista hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo mar dhow noo soo gabagabay bil ka hor noo soo gabagabay wuxuu kor u qaaday midnimada bogsiinta boogihii hore iyo horumar nabadeed oo qaranka dhexdiisa waxa uu bixiyay ififaale rajo xambaarsan oo ay saldhig u tahay ka qayb qaadasho iyo hanaan midaysan oo dib u heshiisiineed runtii dowlad goboleedyada aad bay ugu mahadsan yihiin iyaga ayay tahay meelaha ugu badan oo dib u heshiisiintaasi ay ka dhacayso wasaaradaha arrimaha gudaha ee halkan fadhiya agaasimayaashoodii guudna saldhigga u weyn ayay u yihiin sidaas oo kale annagoo adeegsanayna sidoo kale waxa la hirgeliyay ayagoo ay naga saacideen UNDP nidaamka hagidda iyo khariidadeynta khilaafyada waxaana wax ka bedelnay sida degmooyinka gobolada iyo hay'adaha federaalka uga qayb qaataan dadaalada nabad dhiska iyo dib u heshiisiinta nidaamka ayaa u shaqeeya sida qaab isku xira daneeyayaasha iyo bixinta digniinta ugu horeysa si looga hortago loona yareeyo cabashooyinka iyo khilaafyada soo noqnoqday lana kobciyo dhaqanka wada noolaanshaha ee nabadda ku dhisan danjirayaashii sharafta leh martida sharafta leh iyo mudanayaal iyo marweyn daahfurka barnaamijkan taariikhiga ah barnaamijka taariikhiga ee kaarka aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaran oo halkan madaxdeedu ay fadhiyaan iyo dadaalada loogu jiro kobcinta isbeddelka nidaamka digitalka waxay kor u qaadayaan amniga bixinta adeegyada bulshada waxayna siinayaan muwaadiniinteena hab ay ku dhistaan aqoonsi muwaadinimo nidaamka kaarka aqoonsiga biometric ID-gu wuxuu siinayaa muwaadiniinteena fursado ay kaga gudbaan caqabadaha dhaqan dhaqaale ee hor istaagay awoodda horumarineed wuxuuna abuurayaa jawi habboon isku duubnida qaranka oo ay ku raaxaystaan xuquuqdooda dastuuriga ah oo buuxda oo ay ugu horeeyaan doorashooyinka la filaya dalka inay ka dhacaan markaan dib u milicsano guulaha aan soo xusnay waxaan sidoo kale muhiim ah inaan aqoonsano muhiimadda ay leedahay inaan joogteyno dadaalada lagu horumarinayo arrimahaasi joogteynta taageeradaasi waxay muhiim u tahay gaarista horumaro lagu xaqiijiyo ajendayaashaas waaweyn ugu dambeyn mudanayaal marweyn si howlahaasi loo xaqiijiyo
waxaan u baahannahay garab istaaggiinna iyo taageeradiinna aan hagarta lahayn iyagoo aan ognahay 30 sano la soo dhaafay inaad dalka Soomaaliya aad soo garab taagneedeen ugu dambeynna waxaan idinkaga mahadcelinaynaa imaanshihiinna iyo inaan bilowno ajendayaashaas maanta aan sheegnay oo isugu jira labada wasaaradood inay horay u dhaqaaqaan aan aragno ajendayaashaas dalka qorshayaasha 2024 arrimaha ugu jira oo dastuurka dhamaystirkiisa iyo doorashooyinka iyo dib u heshiisiinada iyo dhammaan qodobada aan sheegno oo dhamay inay noqdaan kuwa sanadka aakhirkiisa aan xusno iyadoo lagu guuleystay aad iyo aad baa u mahadsantiin